munaasabad ballaaran si aad loo soo agaasimay isla markaasina lagu weyneynayo 18 May 23 sano guuradii ka soo wareegatay markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka goodo Soomaaliya inteeda kale ayaa waxa lagu qabtay Kuala Lumpur Hotel oo ku yaala bartamaha caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur. Xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee ardadii jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Malaysia Mudane Shaafi Ahmed Ali Nuur, gudoomiyaha qabanqaabada xafladan Mudane Xarbi Ibrahim Abdullahi, xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee Soomaaliland ahna xeer ilaaliyaha gobolka Saaxil Jaamac Ducaale Saciid, gudoomiye hore ee ardadii jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Malaysia Mudane Cabdirasaaq Cuday, agaasimiye hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, arday aqoon-yahano abwaano iyo fanaaniin, waxaana dhammaan wajooda laga dareemay siday ugu faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan xafladan lagu weyneynayo 18 May. Munaasabadan oo kamid ah munaasabado dhowr ah oo loogu dabaaldegayo 18 May oo ah maalin ku weyn ummadda reer Soomaaliland ayaa waxa lagu soo bandhigay heeso, khudbado iyo riwaayado ka turjumaya gooni isku taaga Soomaaliland iyo sida diyaar ugu tahay inay noqoto dawlad madax banaan oo ka madax banaan Soomaalida inteeda kale. Waxaana soo qaban qaabiyay xafladan ururweynaha ardadii jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Malaysia, Somaliland Student Association and Community in Malaysia. ugu horeen munaasabadan ayaa waxa daafuray gudoomiyaha qabanqaabada xafladan Mudane Xarbi oo joogo qof madax ka ahaan jiray wadankeeni haddana ah kulay waa agaasimiye hore wasaaradda waxbarashada isagana waan soo dhaweynaa waxa kale oo la joogay xeer ilaaliyihii martisalafta dhamaantood iyo ummadda kale ee walaalahayagana jaarka ama wadamada jaarka haday tii Soomaaliya hadii kale waxaan leeyahay ku soo dhawaada sanad guuro wacan wanaagsan. dawladii kacaanka kacawda laakiin ilaa yatii lixdankii waxba isuba keen dhaabin hor laga hadlay marka ardayda in la fahansiiyo wixii dhacay waa waajib. lixdankii baynu ku biiray maxay koonfur samaysay maaha qabiil waxay yiraahdeen halkii wax qaybin lahaayeen ee ay oran lahaayeen waxa noo qaybshay waxay madaxweynaha anagaal ra'iisul wasaaraha anagaal wasiirada anagaal agaasimayaasha guud anagaal shanaanada anagaal ambaasadorada anagaal. sidoo kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha guud ee ardadii jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Malaysia Mudane Shaafi Ahmed Ali oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo qiimo badan oo isugu jira dardaaran iyo ka sheekeynta 18 May oo ah maalin ku weyn ummadda reer Soomaaliland. in yar aan dib ugu noqdo 60kii ka hor Soomaaliland halkay ka taagneed Soomaalida amba dhulka waqooyi kolba luqadda aad ku fahantaan waayo waqooyi waxaan u leeyahay niman badan oo saaxiibanaha kaftan wadaagnahay baa halka dambe fadhiya oo isleeyahay bal ha fahmaan meesha loo jeedo meel golo kasta oo shir oo la isugu yimaado 18 wixii ka horeeyay Soomaaliland Ingiriisku muu ogolayn in Soomaali isku biirto ay wadan noqoto. dadka kaliyaata ee golayaasha isugu yimaada ku celcelin jiray war Soomaali dawladda wada samaysanaysaa waxa ay reer waqooyiga 18 Ingiriisku yeelay markuu yeelay wuxuu war 6 bilood suga war intaada fartan baxaysan suga may baan ku niri warniyo nimanka dadka aanu diinta wadaagnayo luqadda aan wax ku darsanno oo geeska Afrika nabad ku yeelana niri de maxaa ka yaalay nin guka weyn gubaas ka weyn oo ninka aan calankiisaba dunida ka dhici jirin taladiisa markaynu sheegnay diidnay de wixii ka dhacay waa ka dhacay 60kii markii la tagay kaliya mahmaahum baan oranayaa nimanka walaaladeen waxa la yeesay noogu lisnay inoogu may hambayn oo reer waqooyiga marka marti loogu yimaado deena kugu seexday isagoo qatan laakiin anagu ma aanan sameeyeen siday sameeyeen wasiir waxbarashada baa loo magacaabay cilcigaal Allah u naxariistay deemay qaban meeshaan filay laakiin way garteen taariikhdu waa maguurto walaalada Soomaaliyeena hal fariin baan doonayaa inaan halkan uga tago oo ah warbaltii hore waynu tijaabinay inaynu laba dawladood noqono aynu tijaabino oo saddex calan aynu Afrika ku yeelano Soomaaliyeed. munaasabadan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horeysay oo nuuceedo kala oo abid ka dhacda wadanka Malaysia iyo Soomaaliland ay wali u xusul duubayso inay ictiraaf buuxda ka hesho caalamka. Axmed Abuukar Azhari, TV-ga caalamiga Somali Channel, Malaysia.